CBA ee soo qaban qaabisay runtii ama isu keentay dhalinyartan gobollada kala duwan ka timiday iyo marti sharafka ay halkan kala joogtay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib ilaahay baa horta mahad leh. marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu hambalinayaa runtii hay'adda CBA isku xil saartay inay dhalinyarta kala duwan lixdii gobol ee Somaliland ka soo xushay in dhalinyarta inta leeg maanta hor fadhida runtii isla markaana ku tababaraysay sidii maartay maamulka iyo maareynta iyo hogaaminta ay u bari lahaayeen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii. annaga ka xukuumad ahaan waad ogtihiin kolley muhiimadda aan siino dhalinyarada waxay noo joogta halka maartay muhiimadda sababtoo qaranku ka dhismaa dhalinyar aqoon leh oo waxbaratay oo muwaadiniina iyo qaran walba meel gaadhsiin karta ama isbeddelka waddan ka socda waxaa adduunyada isbeddel ku sameeyay waa dhalinyar. aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa horta marka hore aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa waanaad mahadsantihiin runtii inaad idinkuna aad meelo dhaadheer uga timaadeen inaad maaragtay tartankeena ka soo dhex baxdeen saaxiibadiinii kale ee gobollada aad ka soo dhex baxdeen inaad u dhabar adeegteen inaad tababarkii idiin socdo. muhiimadda weynada laydin barayna waa saad sheegteenoo qofka biniaadamka muwaadinka waxa horta ugu muhiimsanoo qofka muwaadinku bartaa waa dastuurka dalkiisa dastuurka dalkiisa weyn sababtoo ah qofku markuu dastuurka darso wuxuu ogaanayaa wuxuu xaq loogu leeyahay iyo isagu xaq leeyahay. biniaadanka qaramada dhan ee dhisan dee heerarka kala duwan adduunyada marayaay waxay ku kala hormareen qolo walba waxay ku heshiisay sida u ilaalisay u dhowrtay ama u fulisay weyn. dastuurku waxa ummad inagu ummad islaamana waa nahay ummadda islaamka dee ilaahay baa dastuur noo dejiyey oo dastuur kitaabkeena iyo sunnaha nebiga dastuurkeena haddana dee biniaadan baan roo weli inta dowladda islaamka maanta dowlad sideedii ugu dhaqanta dastuurkii maarta ilaahay soo dejiyey waa yaryahay. haddana dastuurkii biniaadan samaysanaya oo heshiis kale oo labaada oo biniaadankii ilaahay abuure kala duwanaa gaali islaamba ayaa jira. marka dastuurkaasi muhiimaddiisu waxay tahay waa waxa ummaddani ku kala soconaysa dee waxaase u muhiimsan isku ognahay macnihii annaguna waan dadaalaynaa waa sida la sheegay wax walba de qabyadu marma waa dhammaatee wax badan oo soo jirayey oo haddii ahayd awalda inanka xildhibaanku dhalay inanka suldaanku dhalay inanka wasiirku dhalay ee codkiisu may soo gaadhay un dee gacanta la qabanayay ina taasina meesha ka baxdo adeeda wixii kolbaa waddanka shaqo u yimaada ay ku timaado tartanka xalaasha la bilaabay ilaa sharikadaha waddanka imka soo degaya ee hadday waddo samaynayaan hadday dikad samaynayaan ballantaan kula galnay ama aan madaxweyne kula hadlay waxa weeyaan wixii ay khayraad bixinayaan inay dadka dhex dhigaan waa inin noqonin waa saaxiib iyo nin jeclays iyo ka sii ummadda waxaad isku aaminaysaana oo qaran ku noqonaysaana waa cadaaladda iyo in wixii la wada yeesho haddana wixii la wada yeelan ummaddu ma noqonayso. marka ilaa iyo shirkadaha waxaan kula hadalnay inay wixii ay resource bixinayaan ama ha noqoto service qayb ay bixinayaan ama ha noqoto shaqaale ha noqoto inay dadka ay dhex dhigaan oo annaguna dowladduna markhaati ka noqoto. dee maanta shirkad u baahato 200 qof 200 inay sidaa imka inagu ay u sameynay hay'addeenu samaysa in loo sameeyo insha allah. marka aad iyo aad baad mahadsantihiin nolosha wada cusubtiina intii kii shaqeeyna shaqeyntaan shaqeyna waxaan u rajaynaynaa maartay mustaqbal wanaagsan.